dekada cusub ee shixnadaha kala duwan ee multi-purpose port loo yaqaano ee magaalada Djibouti ayaa markabkii ugu horeeyay ku soo xidhay habeenkii xalayto isagoo oo siday gaadiid aad u tiro badan. Mas'uuliyiinta dekada oo hogaaminayay maareeye ku-xigeenka mudane Jaamac Ibrahim Daraar haddana ah kusimaha maareeyaha guud ee dekada oo ay weheliyaan saraakiisha qaybaha kala duwan ee dekada iyo waliba marti sharaf kale oo badan ayaa habeenkii xalayto guddoonsiiyay shahaadada soo dhaweynta oo la siiyo kabtan kasta oo dekada ku cusub iyo kabtan kasta oo ugu soo horeeya dekad cusub iyo waliba wakiiladooda. waxaana dhammaan mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay u mahadnaqeen maraakiibta wakiiladooda iyo waliba shaqaalaha. saaka waxaa isna subaxnimadii ku soo xidhay marsada cusub markab kale, markabkaasoo ay soo galbiyeen laba taag oo tuurayay biyo dabaaldega. markabkan ayaa isna siday gaadiid badan. markabkan oo isna dekada ku cusbaa ayaa la siiyey shahaadada soo dhaweynta isaga iyo wakiilkiisa Djibouti intaba. waxaana noo suurto gashay inaanu waraysano howlwadeenno sare oo ka tirsan laamaha dekada iyo waliba waaxda cashuuraha ee wadankan. ugu horeyn waxaanu waraysi la yeelanay Cabdi Ismaaciil Xasan oo ah agaasima ku-xigeenka dhinaca ganacsiga ee dekada. waxaanu sheegay in dekadan oo muddo la sugayay shaqadeedu ay bilaabantay maanta, isagoo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yiri waayo halkan waxa loogu talagalay boorkan waa boor productivity-giisu inuu bataa tayadiisa iyo dadajisiidkiisa sida alaabta looga dhaadhicinayo oo inaga arkay wiishashka waaweyn ee yaala oo loogu talagalay maraakiibta xoolaha laga dhaadhicinayo. imika kaniin dul joognay baabuurada ka dhaadhicinaya maanta boorka ayaa gacantiisa ku wala haysta. awal waagi hore waxa ka shaqeynaya shirkado kale oo priveyo dad qaas u leeyihiin. maanta boorkii baa shaqadii dib ula wala wareegay, isaga shaqadiisi ka wala dhaadhicinaya baabuurka markab kasta oo soo gala dikadan. kolka shaqadii saddex goor laab bay noqonaysaa inay ka fududaato sidii waaga hore looga shaqeynayay. Wahiib Daahir Aadan oo isna ka hadlay waxyaabaha casriga ah ee dekadani soo kordhisay iyo sida loogu fududeynayo ganacsatada iyo wakiiladooda shixnadaha ay u baahan yihiin ayaa waxa uu yiri systemka waxaan ugu talagalnay qofka fadhiya bureaugiisa amba ninka forwarder la yiraahdo amba transitor la yiraahdo Faransiiska, isagoo bureaugiisa fadhiya inuu processkii oo dhan ku dhamaysto una porbe iman web base waxa la yiraahdo afka qalaad ayuu leeyahay. xagaa buu ka galayaa, xagaa buu alaabtiisa ka dhamaysanaya, xagaa buu ka booking garanaya gaarigiisu maalintuu imanayo, xagaa buu lacagta ku bixin doonaa. waxaa soo dhan baan isku xidhnay. marka dadka imanaya porka way dhamaatay transiterkii iman jiray porka saani bureaugiisa markuu qalab waxaa soo dhan ku dhamaysto gaarigii oo socdo ma imanaya. dhinaca kale Cabdiraxmaan Cawad Ciisi oo ah gudoomiye ku-xigeenka customka ama waaxda cashuuraha ee dekada oo aan waraysanay ayaa isna Saab TV u sheegay in wax weyn u soo kordheen dadka reer Djibouti. isagoo arrimaha ka hadlayana waa kan. kolka fikradan ay dhismaha boorarkan ay ka mid tahay inay gaarsiino ina wixii in Ethiopia oo ku yar joogsano ina wixii dhaqaalaheena Djibouti aan سرعان وقعدنا حتى أنا هيانو قاسمه كحجيكة عشوراتك ما تدي له بعمل لما ود الجوجنا الشعب محيد شغالي كاستمس جيت كود الجوجان ما حيكون كوردينسا لو حيكون كوردينسا